wallahi de qolooyinka igaada soo saaray iyo dawladda Ethiopia baa ogaan kara inay xaqiiq tahay calaamadoodii way ku qoran tahay laakiin dadka calaamadaha waa la samaystaa laakiin waxyaabaha ka yaabka ugu weyn waxa weeye ma aha ninkan in la eriyay sida loo eriyay weeyaan wax yaab kale waa gartay qofka had iyo jeer waxa la siiyaa bishan baa la siinaya la oranaya waad ka baxasaa haddayna bisha mushaharadiisii u qadimin oona oran maantaba ka bax laakiin waa qariib waxa yaab bay la tahay in la dhaho waraaqdana maantay soo baxday maantana waa inaad meesha ka baxdaa wax weyn baa dhacay walaal markaa waa gartay waraaqdan haatanba gacanta ayaan ku hayaa marka waxaa la leeyahay urur goboleedka igad waxa ay u direen waraaqdan isaga qudhiisa wuxuu ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee ururka marka bal maxaa ay kula tahay in ay sabab u tahay in sidan loola hadli karo sarkaalkaasi Gabre kolley waxay ka socotaa igad waxa loo qaybsadaa shaqaalaha wadamada ka qaybta ah ayaa kala qaybsada shaqaalaha inta badan maaha uun farsamo laguma qaato dadka intiisa badan marka Gabre wuxuu ka socday Ethiopiana markii hore magacawgiisa lahayd Kenya iyo qolooyinka kalena way ka aqbaleen marka waxaan isleeyahay waxyaabaha isbedelka ka socda Ethiopia ayay ku lug leedahay gaar ahaan sida degdega ee lama filaanka ee loo eriyay inay wax ka jiraan waa gartay horey waxaa u jirtay dawladda Ethiopia in 9 ku dhawaad sarkaal oo booliis u badan ku-xigeenkii madaxa booliiskana uu ku jiro in shaqada laga fariisiyay qaarna la xirxiray marka taasoo loola xiriirinaya qaraxii ka dhacay magaalada Addis Ababa sabtidii aan soo dhaafnay marka tani ma taasay ku leedahay mise wax ururka u gaar ah maxaa lagu falanqeyn karaa arrintan wallahi maskaxda waxay ku siinaysaa walaal iyaga gunta ogoode maynaan dhex fadhin marka waraaqdan la qorayo cidii soo wacday waa in la eriyaayo waraaqdii dawladdaasi soo qortay laakiinse waxyaabaha isbedelka Ethiopia ka dhacaya laba wajibun bay yeelan doonaan mid waxa weeye isbedelka socda ra'iisul wasaaruhu madaxda ka yahay ay la socdaan xisbiga Oromada iyo qaar kaleba xataa kuwii xamaarada qaarkood la socdaan inay guuleystaan oo qolooyinkii dawladdii hore ku xidhnaa iyo ciidamada kuwii xukumi jiray meelayowga halbowlaha oo dhan in laga takhaluso ayay noqon doontaa iyo in rogaal celin hay sameeyaan oo ay jebin doonaan qolooyinka labadaa mid un bay noqon doontaa laakiinse dagaal hoose oo xagga amniga iyo xagga la cadaystee siyaasadda labadaas ayaa Ethiopia karinaya walaal marka karkaasina waxaa ka soo bixi doona dad fara badan oo waxay haysteen ku waaya ama shaqooyinkoodii ama jagooyinkoodii iyo maalkoogiiba iyo waxa laga yaabaa hadday kuwii hore guuleystaan ay soo rogaal celiyaanna qoladan cusub oo dhan baa laga takhalusaya laakiin imika waxay u eg tahay in gilgilka ka dhacay meeshaasi iyo qaraxa fashila intiisa badan dadka ku dhintaane inay u eg tahay inay soo gaadhay isbedelka Ethiopia meel aan u ekeen in dib looga noqon karo walaal waa gartay la taliye sare oo dhinaca ammaanka inuu ahaa ayuu igad u qaabilsanaa Gabre bal marka dhinaca kalena waxaa muddo aad u dheer la hadalhayay inuu saameyn ku lahaa maamulada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hadday noqoto qaar ka mid ah xildhibaanada wasiirada qaarkood dad ayaa waxay aad iyo goor u sheegi jireen inay isku dhow yihiin siyaasiyiinta Soomaalida intooda badan marka haddii uu meesha ka baxo maxay siyaasadda Soomaaliya ku yeelan doontaa inkastoo asaga hadda uu ahaaba u qaybsanaha ama la taliyaha dhinaca amniga ee urur goboleedka igad anigu saray walaal maalin quraan ninkan wejigiisa sheed ka arkay waxay maalintii doorashada madaxtooyinka dhacay xarunta ciidamada cirka ee magaalada Muqdisho anigu meeshaan fadhiyo dadkaan ilaalinayna inayna waxba dhaafsan lacag iyo wax kamid ah marka waxaad arkaysaa ninkan way ku soo haganayeen qaarkood qolooyinka madaxda sheeganaya gobolada iyo kuwa baarlamaanka ku jiray waxaad moodaysay quraanjo ku ordaysa meel hay malab yaalo ayaad moodaysay sida ugu yaacayaan marka inuu ku xidhnaa uu sir siin jiray uu amar siin jiray oo san yeel odhan jiray uu iyaka iska hor keeni jiray u malayn maayo markhaati doon inay tahay marka haddii taasi isbedeshay laba mid ama saddex mid unbaa Soomaali hortaala in haddii ay dawladda Ethiopia ka dhab tahay inay leedahay waxaan doonaynaa Soomaali inaan walaaloowno waxaa iman doona markaa gobolka Soomaalida horta siday ula dhaqmaan iyo sida loo sifeeyo iyo cidda sifaynaysa ayay ku xidhnaan doontaa ilaa ninka madaxda gobolka Soomaalida ka ah wuxuu ku xidhnaa dawladdii hore markaa halka la mariyo halkaasi ayaa tilmaam weyn sii doonta inay waxaan tahay wax Soomaali inta iyaduna maskaxdeeda la timaado
hay ku shuraakoobi doonaan in ixtiraam iyo maamuus iyo qarannimo iyo jaar la wanaagsan la noqdo iyo in kale laakiinse waxa weeyaan karka ka socda iyo kulaylka ka socda Ethiopia muddo qaadan doona